gaaladii ka mid oo Roma oo dhufayska ku sugan ayaa xagga sareeyta u soo baxday ee muslimiinta an-nadratu al-ula laka fa inma laka al-ula wa laysat laka runtii waxaan wanaagsan asxaabteena qaaliga sida joogtada ugu xiran channelkeena xogbixinta wararka halkani waa kanaalka xogbixinta wararka fadlan taabada calaamada subscribe oo nala saaxiib oo nala joog mar kasta iyo waqti kasta si ay ku soo galaan barnaamijyada iyo wararka halkan ka baxa runtii halkan waxaan u taaganahay 24 saac si aan u soo gudbin lahayn wararka rasmiga ee ka socda 24 saac baraha bulshada halkan maanta daawadayaal waxaan ku soo gudbinaa qiso aad u murugo badan taasoo haddii aad fiidiyogan dhammaysato aad u murugo doontiin ama aad kaaga oohin doontiin runtii qisadan waxa ku dhacday wadaad muslim ah oo wadaadadana caadiga ee muslimiinta ee diinta islaamka kamid ah runtii wadaadkan waxa muadinkan 15 sano ayuu muadin ahaa oo masjid weyn oo ku yaala qaaradda Yurub qaar ahaan wadanka Ingiriiska ee caasimadda Ingiriiska ee London ayuu ku yaalay haddaba runtii masaajidkan ayaa ahaa masaajid dadka gaarka kaga dhow ama masaajid dadka muslimiinta ay ku tukadaan wadaadkan gabi ahaanba si xooga ayuu yaqaaneen oo qof kaste aad ayuu garanay magaciisa hadii la wadiyo iyo mar kasto codkiisa uu ka eedaamo haddaba runtii ninkan wadaadka ayaa qisadan aad ka murugada badan qabsatay kadib markii uu gabi ahaan iska caariyay diinta islaamka naagis jeclaayeen ee ka saartay diinta islaamka runtii qisadani waa qiso aad loogu murugaado haddaba daawadayaal runtii waxaan oo kale ama runtii naagtan kristanka ay ka saartay diintiisa xalaasha ee islaamka ee wadada toosan ee dariiqeena nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo diinteena islaamka haddaba daawadayaal naag khuraafaad aaminsan oo kristama ayaa tiri waana ku jecel oo ka saaray diinta ee iskaga soo bax diinta fakhriga kadib ninkii halkii ayuu diintiiba kaga baxay oo sidii ay krista ku noqday runtii qisadan aadka xun waxa ka sheekeynayay sheekheena weyn ee Sheekh Faysal Cali Warsame kaasoo ka hadlayay sida ku bilaabantay iyo sida ku dhamaatayba qisadan halkan ay kaga bogan doontaan oo halkan ayaan qaybta daba niga dhigi doona daawadayaal waxaan naga xasuusinaa in haddii aad tahay saaxiib cusub nala saaxiibto aad mar kasta nala joogtid si ay ku soo galaan barnaamijyada iyo warka ka baxa kanaalkeena xogbixinta wararka fadlan fiidiyogan hal qof sii gaarsiiyo dhacday oo ibn kathir ay ka hadlay Abdat ibn Abd الرحيم kalliga oo shaqada ilaahay quraanku baray in cibaado badan buu salaaxi wanaag lagu yaqaan muslimiintii baa jihaaday gaaladii baa isweer laga qabtay dhufayskii baa isweer laga hayaa muddo isweer laga gabadh gaaladii ka mid oo Roma oo dhufayska ku sugan ayaa xagga sareeyta u soo baxday ee muslimiintii an-nadratu al-ula laka fa inma laka al-ula wa laysat laka al-akhir marka dee gabadh cajiib kugu soo baxday takoowad adaan laakiin talabaad ma takoowad macduubat laakiin talabaad adisha la sii raacayso waa kugu dambi gabadhii baa soo baxday oo ishu la raac waa ku fogaad dabada qalbigiisa ku dhacay ninkii wuxuu wadaba waxra inta dad baa isu basaasay waxba isu gudbaya wuxuu gabadhii warkeeda doonaba gabadhii uu xiriir la sameeyay wuxuu kayfa sabiilu ilay sida ku soo gaadha war kale ma jiro sida ku soo gaadhi lahaa ayun baan doonay waxay tiri waa fududahay anta tanassa wa taati inda ina diinta islaamka ka baxdo kristaan noqoto noo timaadi wadi helaysa tabadeedna intuu dusay ayuu isu dhiibay diinta islaamkana waa ka baxay gabadhiina waa iskuursaday bari damba muslimiintii ay ku soo mareen isagoo gabadhii la fadhiya tabadeedna waxaa leeyahay Abdat ibn Abd الرحيم ما فعل قرآن ما فعل صيام ما فعلت صلاة صلاة محيي صومكاغي محويا قرآنكاغي محوكو ترك tabadeedna waxaa soo dhawaan loo siiyay waxa ka ahayd qowl Allah ta'ala rubama yawaddu alladhina kafaru